السلام عليكم لما أردت جامعة دابرار وشرفت له كسو دوادا مقال قابن وأنا قلت لك قلني إن كشر عنو قابك أردت جامعة دابرار هو قيب قاضي لهاين قلتان كامتحان كأونلاين كأه وهرين أرضي والبا وجامعة كترسن وأنا وهستا يوزر يباسور يوزر باسور كاسنا وحالي هيل دونا حفيز كإكسامك كدبنا أرضي والبا مركو انتا هلو وحقاد دونا تلاوين كان سو صعدا ugu horeyn haddaa imtixaanka ka gelaysid computer waa inaad browserkaaga isku hubisaa inuu kuu shaqaynayo haddaa mobileka gelaysidna sidoo kale haddaa computerka gelaysid browserkaaga soo kacso oo waxaad timaadaa halkan wax lagu qoro kadibna waxaad qortaa magacan classmaker.com halkan ayuu ku keeni doonaa halkan markuu ku keeno qaybtan hoose ee ugu hooseysa ku qoran tahay Glassmaker qaybtaas ayaad waxaad sameyn doontaa qaybtan ka hadlayo waa qaybtaas ugu hooseysa qaybtaas ayaa waxaad sameyn doontaa inaad ku dhufo oo markaan ku dhufana halkan ayuu noo soo qaaday halkan markuu noo soo qaadana waxaad aadi doontaa halkan ugu sareysa oo ah user iyo passwordka qaybtaas ugu sareysa oo ah userkii passwordka ay ku qoran tahay user passwordka xafiiska examka ka soo qaadatay ayaa halkan geli doontaa qaybtan ugu horeysa userka galay qaybtan ku xigtana passwordka ayaad geli doontaa inta kadib waxaad dhigi doontaa login si imtixaanka gudihiisa aad u gashid login aan dhaano oo login markaan dhaano halkan ayuu noo keenay halkan waa halka ay ka soo muuqanayo ama ay kaaga soo muuqan doonto maadada aad gelisid marka laba option ama laba ikhtiyaar midkood ayaa heli doontaa in maadada aad gelisid isla markiiba ay kugu qoran tahay saan oo kale start magacaas inuu kuu soo qormo ama inuusan soo qormin hadduusan soo qormin micnaheedu waxay noqon doontaa maadadan ma soo fasaxno oo imtixaankeeda lama geli karo haddii startigaas aad aragtidna startigaas ayaad ku dhufan doontaa oo micnaheedu waa maxay startigaas waxay tilmaamaysaa mar walba imtixaankaana la geli doonaa oo imtixaankan hadda waa geli kartaa oo stepskiisa iyo wadooyinkiisa qaade haddii startigaas aad weysidna imtixaanka ma fasaxno markaas micnaheedu waa maxay waa sugaysaa ilaa laga soo daynayo okay balan start dhahno start markaan dhahno wuxuu noo soo qaaday isigana page-ka ku xiga page-kan ku xiga waa maxay waa instructions awaamirta raaci lahayd si imtixaanka aad u gashid maxaa ugu horeeya meesha ugu horeysa waxaa ku qoran number of questions marka ugu horeyso inta su'aal oo aad ka shaqaynaysid waa inaad iska fiirsid waxaa ku xigana waxaa waaye limit of time waqtiga aad haysatid micnaheedu waa maxay imtixaan iyo waqti isku jaan go'an ayaa lagu sii doonaa inaad waqtigaas ilaaliso waa marka su'aalahana adoo ka shaqaynayo okay inta mar isku dayi kartid hadaan waxa ay qoran inay isku dayi karo laba mar marka adiga waxa laga yaabaa in lagu siiyo hal mar imtixaankiina isku daydid lana imtixaanka hal mar galiso hal mar ka badan ma geli kartid imtixaanka hal fadhiya lagu dhameynaa one sitting hal fadhi adaa macnaha inta safe gareysid oo dib u soo laabatid saa u dhameystirto dib ugu soo laaban kartid micnaheedu waa maxay browserkaas kuu furan ma xiri kartid waa ku shaqaynaysaa ilaa shaqada ay kaaga dhamaatana sidaas awoodaysaa hal fadhiya la ogol yahay page su'aal kasta hal page kugu soo bandhigi doonaa marka ka shaqeynaysidna kama gudbi kartid marka waa inaad ka shaqeysaa su'aashaas kadib aad gudbi kartaa wuxuu ku ogolaanayaa marka qaar inaad marna aad gadaal u soo laabato si aad jinji u samayso waxaa laga yaabaa mar inuu ku ogolaado laakiin wuxuusan kuu ogolaan doonin inaad isku dayda mar kale imtixaanka markaad dhamaysid mar kale iskuma digi kartid ama inta ka baxdid mar kale iskuma digi kartid marka awaamirtaas mar walba akhri si fiican u akhri waxaan rajeynaa insha allah inaad fahmi doontid kadib intaan waxaan dhihi doonaa hadda go back dib u laaban karnaa laakiin hadda waxaan dhihi doonaa start markaan dhahnay halkaan una keenay halkaan waa macne qaybtaas ugu horeysa waxaa ka muuqda waqtiga qaybtaas waa waqtiga qaybtaas hore waa waqtiga ayaa ku qoran oo waxay kuu sheegaysaa inta saacad ee aad haysatid saacadaas wuxuu ku tilmaamay marka imtixaankan intay ku dhameynay 30 daqiiqo ma haysataa hal saac ma haysataa intay haysataa iyo su'aalaha ay haysatid inaad isbarbar dhigtid mar walba saacadaas marka hadday kaa dhacday micnaheedu waa maxay imtixaankaas uu kaa dhamaaday dib uma geli doontid dib uma heli doontid marka inaad ka taxadirtid waaye waqtigaas oo wax kale aadan waqti ku dhamin imtixaankaaga aad muhiimadda diiradda aad saartid si aad su'aalaha uga shaqaysid waqti badan oo kalena uusan meel kale kaaga dhumin laana su'aalaha lagu siinaayo
iyo waqtiga way isku jaango'ayeen su'aaluhu waa multiple choice ama waxa loo yaqaan MCQ questions iyo isku aadin match ah iyo true and false intaas isugu jiraan marka su'aal walbaba waqtiga loogu talagalay waqtiga arday ku fikiri kare oo ku dhameyn karo hada laga rabaa marka inaad waqtigaaga ilaashatid okay aan bilowno hadda daan sameeyno su'aasha inaan ka gudbo anoo ka shaqeynin wuxuu dhigi doonaa you must attempt all questions to continue sa hore ugu sii socotid at least waa inaad doorataa one option marka iska hubitana micnaheedu waa maxay kama socon kartid adoon su'aashan ka shaqeynin su'aash ku xigta ma arki kartid mana aadi kartid si adarteed waa inaad su'aash ka shaqeysaa okay midaan dooranayna sidaas oo kale hadaan iska dooranay next aan dhaano noo socdo marka wuxuu geey doona qaybta ku xigta waa kana 2 of 10 waa maxay su'aasha labaad hadda mara aan doortay next su'aash ku xigta uu keenay iyadana sidoo kale sida hadda aan sameeynayno oo kale waxa iska dooranaa aniga hadda maadaama oo imtixaankan sample iska yahay biyo kale iska kay door next biyo kale iska dooro next marka hadii waxa laga rabaa inaad su'aash akhrisid expression of willingness to attract Allah laga rabaa su'aash inaad akhrisid kadibna doorashadu ku habboon mar walba akhrisid laga hadda aniga waxaan muujinaynaa jantuski ama qaabka adiga oo raaci lahayd bis ayaa lagu tusaa das kala fahmaysa next okay ana maxamed 7 of 10 waqti badanna wali waa haystaa oo aan dareemaa macna waqtiga aan haysto intuu leeyahay okay su'aashan oo kale hal yaab in waqti badan iga qaadato maybe in calculation tahay oo doorasho ay leedahay inuu cabaar soo xisaabtay kaaga baahan tahay kadibna aad mid dooratid waqtiga saas lagu sii kadib next soo soco 8 of 10 si iska dooro 9 of 10 week oo kale iska dooro okay halkan ku keen waa dhameeyay macnaha gabagabada imaanay ee waqti badan noo dhiman yahay ardayda qaar xaliga baan ay dhameeyaan laakiin waarki doona waqtiga markuu dhamaado wax dhacay okay xaliga baad su'aashan ka shaqeyneen inuu waqtigu ugu dhaco ka soo qaad finish aad doonta markuu imtixaanka dhameeyo kadibna confirm ayuu ku keenin doonaa meel ay confirm ku qoran tahay finish tan marka ku dhufatid finish taas marka ku dhufatid wuxuu ku keenin doonaa meel ay ku qoran tahay confirm iyadana confirm finishing up taasoo kale ku keenaa iyadana waa si confirm gareena micnaheedu waa imtixaanka waa dhameeyay wax iyaga dhiman malahan laakiin hadduu waqti kugu dhaco waqti hadduu kugu dhaco saan oo kala dhici doonta wuxuu ku siinaa inaad su'aasha ka shaqeyn oo waqti kaaga dhacay oo ku yiraahdo dib u meeli doontid lana hadda finish ma dhigi karno finish daana waa ina ku leeyahay ina su'aasha ka shaqeyso wuxuu leeyahay finish daana hadda waa ina su'aasha ka shaqeyso uu leeyahay laakiin waa iska sugaa ka soo qaad qof waa meeshan waqtiga uga dhacay uu cabaar uu su'aala ka shaqeeyay waqti badan oo gilgiliyay waqtiga ka dhacay bala aragna markaas oo waqtiga ka dhacay iyo qabku noqonay jidna waqti waa gabagabo oo waa ka saacad ugu dambaysa uu dhici rabaa hadaad finish ko iga diiday almost uu ka dhaca qofkan oo kale saan oo kale markuu kaaga dhaco su'aasha ugu dambaysay waa duweynaysaa marka waa inaad iska hubiso in waqtiga oo mar walba aad la socotid waqtiga haduu ku wax kaaga dhiman yihiin saas oo kale waqtiga kuugu dhici doono wuxuu ku dhici doonaa finish it it is time limit waa la gaaray halka tamtigana imtixaankan lama ogola inaad dib u soo gashid waxna warkaas uu ku soo qoraa marka qofka hal mar oo isku dayo uu leeyahay waqtiga haduu ka dhacana sidaas uu ku soo qoraya su'aasha ugu dambaysa hadaad iga diidayana waa aragteen almost hadda wayba ka dhacday waqtiga ku dhacay adon ka shaqeynin imtixaanka marka waa half maray haduu waqtiga kaaga dhaco qaybta hore un baa ku soo bixi doonta qaybta dambe eber noqon doonta micnaheedu waa maxay imtixaanka qaybtaas kama wada shaqeynin marka insha Allah waxaan rajeynayaa inuu aad fahamteen tilaabooyinka hadaan soo qaadnay waxaan idin rajeynayaa inuu imtixaanka idin fududaan doono insha Allah waana mahadsantihiin shaqo wacan